gudida joogtada ee golaha guurta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa hor yimid wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed. gudida joogtada ee golaha guurta ee Soomaaliland ayaa su'aalo ka weydiiyay waxyaabaha ay qabato wasaaradda diinta iyo awqaaftu. mudane wasiir yeeritaankayagu wuxuu ku la xiriiray goor walba in la iska warqabo xaaladku dalka hogaamintiisa hawlihiisa diineed abaareed waa daruuri goor walba in la iska warqabo xagee la maraya markii xaalado soo baxaan ama badbadowna waa loo baahan yahay in la isii arko ay ka sii badatay inta si la isula jaan qaado wuxuu sheegidda wacyigelinta ummadda idinkaana maamulkii wada oo taayirkii wareejinaya annaguna inaynu gudbinno ayay meesha ku habboon tahay si aanu macluumaadkaa u helno ayaanu kugu yeedhnay ayaamihii ugu dhoweyd way jirtay oo su'aalaha la isweydiinayay ugu badnaa dhalinyaradii muxuu timaha laga xiirayay waxyaaba caynkaas oo kale baa jiray abaarihii oo iyadana aad xubin weyn ama gudoomiyaba u tahay oo iyadana xaaladeedu maanta taagan tahay oo qayladhaantii meel walba ka baxayso labada arrimood wixii warbixina xaaladda taagan ayaanu ka codsanay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa halkaasi ka akhriyay wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland ahmiyadda ay u leedahay qaranka. waxa wasaaradani ay u xilsaaran tahay sida sheegteen horumarinta diinta islaamka gaar ahaan xagga barashada iyo ku dhaqanka iyo ilaalinta anshaxa guud si loo helo muwaadin daacad ah oo alla ka cabsanaya oo hawlkar ah isla markaana gudanaya hawl maalmeedkiisa isagoo diinta iyo manhajka saxda ah ku dhaqmaya xagga dhaqanka iyo waxbarashada iyadoo ay wasaaraddu hawlgelinayso agaasinka masaajidada iyo madrasadaha xagga barashada diinta waxay ilaalisaa manhajka waxbarasho oo ku habboon madrasadaha malcaamadaha dugsiyada hoose ilaa kuwa sare muxaadarooyinka xilliga fasaxa ay ardaydu yihiin dhalinyaro ahaan saymakaba socota iyo masaajidada oo casharada tafsiirka fiqiga iyo xadiiska iyo axkaamta shareecada si habaysan looga akhriyo idaacadda gaar ahaan idaacadda qur-aanka kariimka oo mawjad u gaara oo 24 saacadood socota ka warqabtaan inay inoo hirgashay oo ay ka hirgashay dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee gobolka Soomaaliland marka lagu dalo Gabiley lafteeda barnaamijyo wacygelineed oo tayo leh ayaa inta badan nooga socda idaacadda qur-aanka kariimka iyo guud ahaan idaacadda raadi Hargeysa oo si horeba ay uga baxaan casharo diiniya iyo wacdiyo waano sidoo kale TV-ga qaranka waxay nooga socda barnaamijyo wacyigelineed oo diiniya ayaa nooga socda sidoo kale waxay xambaartay TV-ga qaranka wuxuu noo xambaaray idaacadda qur-aanka kariimka in laga dhageysto dalalka Yurub iyo Ameerika iyo Australia inta uu satellite ka gaadho waxa barbar socota qur-aankii oo isna dhinac socda xagga fidinta diinta wasaaraddu iyadoo hawlgelinaysa siduwayaasha gobolada oo taabinayaan culimada diinka qaranku waxay xoojinaysaa guddiyo wanaag fariista iyo xumaan reebista dhammaan gobolada kuwa ka jira culimada daaciyiin oo u baxda miyiga iyo culimada daaciyiin oo ka shaqeysa magaalooyinka wacdi muxaadaraad laga jeediyo wadooyinka dacwad shaaracda loo yaqaano muxaadarooyinka diiniga ah ee loo qabto ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha muxaadarooyin diiniya oo loo qabto dumarka meel ku habboon waxay gelinta wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda gaar ahaan iyo talisada ciidamada gaar ahaan bisha Ramadaan oo ka warqabtaan inay wasaaraddu ku hawlan tahay waxa ilaalinta iyo kormeerka kawaanada xoolaha si loo helo ama loo xaqiijiyo gowrac waafaqsan shariicada islaamka oo inoo xalaaleeyo hilibkan cunayno shirarka culimada diinka waxay wasaaraddu diyaarisay culimada waaweyn ee gobolada dalka ee bisha Ramadaan inay hal mar isarkaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo madaxweynihii hore ahaa madaxweyne Maxamed Axmed Maxamuud Silaayo insha Allah caadayno noqotay inay madax kasto qarankiina sidaas leeg ay la kulmaan culimada diinka hawlaha samafalka diyaarinta codsiga cashuur dhaafka muwaadiniinta loo keeno wixii musaacadaada ama wixii muxuu ahaayay taakulayna in loo sameeyo cashuur dhaaf dabagalka iyo ka warqabka taakulaynta danyarta agoonta iyo dadka baahida gaarka ah leh ama curyaamiinta ilaalinta ubadka la tuuro iyo xanaanadooda iyo in loo sameeyo